hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ina adeerto ay furan idinkuma arkaysid ina adeerto min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday eed qadiihoy بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Tixraaca wararka ee Samanis TV oo idin kaga imaanaya TV-ga xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka caawa xamartiin inooga isla markaan aan kaga mahad celinayno musharax madaxweyne xasan cabdi guleed ee ku soo dhaw Samanis TV barnaamijka Tixraaca wararka ee Samanis TV waa dhawahay bahda Samanis TV waana mahadsantihiin aad iyo aad aan kaga mahad celinayaa booqashada aan idinku imid marka inta salaanta uga baxo waxaan rabaa maanta oo taariikhdu tahay 9 bishii 9aad qamiis habeen jimco soo galayso xaaladda wadanka iyo siyaasadda aad wax ugu weydiinayso waxaan rabaa inaan gudaha galno insha Allah taala waad maasan tahay bal ugu horreyn hadaan ku bilaabno dalka wuxuu galay xaalad doorasho bal xaaladda guud ee siyaasadda dalka ee adiga aragti ahaan xaaladda guud ee siyaasadda wadanka horta waxaan u kala qaadana dhowr jiho anaga doorashaan ku jirnay mowduuc doorasho iyo xoogeedaan ku jirnay waxaa soo baxay isbuucan xoogaa kala aragduwanaansho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaan qaldamine waxay dhashay marka in hay'adihii dalka ay xoogaa ay muran u galo wax la isku qabto waxaasoo dhan sabab ay leeyihiin sideedaba qalad hadduu yimaado waxaa laga abaarayaa ka mas-uul ah wax kasta oo magaaladan ka dhaco madaxweynaha waqtigiisu dhamaadaa ka mas-uula sababtaan u leeyahan kuwa caddaynaa tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha doorasho iyo in wadankan uu xilgaarsiye ka noqdo amniga guud iyo habsami u socodka loo xil saaray gabar Soomaaliyeed ah oo hay'adda nabadgelyada ka shaqeysa la dilay waxaa moodaa in ra'iisul wasaarahan uu ku dagaalamayo gabadha Soomaaliyeed cadaalad ha hesho madaxweynaha waqtigiisa u dhamaadana uu ku dagaalamayo Fahad Yaasiin iyana sharciga la horgeyn horta khilaafkan muddo socday madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday waxaa la rabaa qofka inuu hadduu wax dhiibo u ka haro oo uu qofku wuxuu dhiibay ilaahiisna ku aamino asna faraha u kala baxo waxa uu bilaabay in ra'iisul wasaaraha ka daba shaqeeyo wax walbana uu yeeriyo ra'iisul wasaarahana sida muuqatan iska degan oo qabo uu ahaa qanjarufada marka laga badiyana asna mukulal hada guri ku xirato inay kala baxaysa aakhirkeeda marka waxa sababay in ra'iisul wasaaraha uu asagana awoodiisa la soo baxo ama uu waxyaalaha qaarkood ka hadlo waxa sababay madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday sababtu waxay tahay madaxweynaha wuxuu rabaa dal iyo Soomaaliya oo dhan shakhsi jacaylkiisu rabaa inuu dalkiisa u baabi'iyo Fahad Yaasiin dambiile waa noqon karaa dambina ma yeelan karo gabadhaas la dilay waa in cadaalad ay heshaa aab ma aha murankooda halkaas oo ka yimid waxay la isku haystana ayadoo siyaasad guud iyo baarlamaanka iyo qaabka wax loo dhisay in kasto ay ku jirto haddana hadda wuxuu shaaca waxa ka qaaday dilka gabadhaas madaxweynaha wuxuu magacaabay ama Fahad Yaasiin magacaabay taliyay hore ee nabadgelyada la taliyaha amniga qaranka taasi soo lama dhihi karo waxay si xoojinaysaa khilaafkan horta khilaafkan haddaan ilaahay meel dhaxa uusan ka qaban ama dad aqal isku soo bixin farmaajo ila maareysada oo wada way ka sii dareen sababta ugu sii dareysan ku sheegaa nin baarlamaan golaha guurtida Soomaaliland kamid ahaa wuxuu dhihi jiray waxa naqaan way dhaafto waxay maraysaa uu yiri waxaan garaneen madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday gudoomiye ra'iisul wasaaraha 10 jeer ayuu meel u gacan dhaafaa tusaale ahaan hadda ninkii gada gudoomiyaha ka ahaan jiro horeeto oo la sii daayay ficil madaxweynaha raalli kuma soo ahaan laakiin ra'iisul wasaaraha shakhsiyadda qofka bini'aadanka yar oo madmadow oo xildhibaanada waqooyi ku gadaaman iyo waxyaalahaas oo cunta muwayo arkay isku soo duubo muranka hadda ugu badan wuxuu u yahay Fahad Yaasiin aan badbaadina iyo wadankii Soomaaliyeed aan badbaadina dagaalku intaasan ku soo salayn karnaa ra'iisul wasaaraha waxa uu rabaa in gabar Soomaaliyeed oo la dilay cadaalad u raadiyo
madaxweynahana waxa uu rabaa waqtigiisu dhammaaday in Fahad Yaasiin uu ku hagoogto oo 12 milyan oo Soomaaliyana uu ku hagoogan. waa gartay dhanka kale wasiirka amniga cusub maanta ayuu xilka la wareegay gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka wuxuu sheegay in dhaarinta wasiirkaas cusub aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka kumeel gaarka dalku yaala bal maxaad leedahay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ugu hadlaweysan yahay kiiskan iyo arintan khilaafkan isla markaana wuxuu sheegay arinta wasiirka la dhaariyay horta marka laba u kala qaadno wasiirka la magacaabay oo la dhaariyay iyo gudoomiyaha baarlamaanka aad sheegaysid wasiirka horta la magacaabay wasiirkii hore amniga waa saaxiibkay ninkaana waa niman saaxiib iyo ehel iyo walba isku nahay fikradaadu maxay tahay warkaagu arkay aslan baan horta musharax madaxweynaha ah waxyaalaha aan rabo inta badan aan ayido ama aan ka hadlayna anoo shacbiyad iyo dad raadsanaya haddana inta aanan wadamugdiina gelinayn oo extension iyo muran aan gelinayn inaan taageer xaq u leeyahay wasiirka maanta la magacaabay sharci miyaa masama ah waa sharci wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur waa sharci waana soo dhaweynaa waana ku taageersanahay ra'iisul wasaaraha xaq u leeyahay inuu golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka rafashada ugu dambayso farmaajo ka dhaxadlayo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday rafashada ugu dambayso wuxuu rabaa ama difaac ugu dambeeyo inuu baarlamaanka dhigto laakiin baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday baarlamaanka kale taa la soo doortay oo qaarkood magaalada joogaan aqalka sare waa la socotaa maamul goboleedka kulligood soo dhameeyeen waxa ay ka tahay kaliya waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanka warqadda uu soo qoray waxay tahay ra'iisul wasaaraha hadduu sabdiga hadda ka soo jawaabin baarlamaanka isugu yeeraya kalsoonidan kala laabanina ayadaasna waa laga sii dugtoonaado wax la og yahay waa haday dhacdo in kalsoonida ay xildhibaanadu kala laabtaan ama dhan kale oo dhigo baarlamaanka ka laabtaan ra'iisul wasaaraha dalka xaalad nuucyo gali kara waxay xaalad horta mar walba dhibaato ama arkeenno wadanka ciidan qaran iyo hay'ado kala dambaynaha ka jiraan haday ayagu ay nin waqtigiisa dhamaaday Oxford raacaan ayaga u taala haday sarraaceen oo cadaalada u heeliyaan Semberi dadka magaaladan joogo go'aanka ugu dambeeya ayaga askar waana ka tashanayna gudoomiyaha baarlamaanka in boorka laga soo jafay oo la yiri warqadaas qor warqadiina kadibna jawaabaha ay dhiibi karaan waxay tahay rooble hadduu ka soo jawaab waayo inay inta shiraan dhahaan wasiirkaas amnigaana xaq ma aha rooble la fikirsan xaq ma aha laakiin cid ka yeelayso ma jirto anagu rooblana noo danay ma leeyin farmaajo xilko dhammaan noo danay ma leeyin cadaaladaan ka hadlayna cadaaladna waxa hadda ku taagan rooble ma gartay khilaafka haddii sii xogeysto dalku wuxuu gal doorasho soo dhibaato ma keeni karto horta wadankan hadduu dhib ka dhaco farmaajo ka mas'uul hadda ka hor waxaa la sheegay wasiir aan magaciisa sheegin waqtiga Xasan Sheekh bulshada waxaan kula wadaagaa madaxweynayaal soo maray Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdiqaasin iyo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh aan soo maray madaxweynaha hadduu waqtiga ka dhamaado 4 bilood 5 bilood oo doorasho lagu mashquulsan yahay inuu sii jooga wax weyn oo dhiba uma arko laakiin waxaan ku sii joogaa ku darsi iyo maalin walba xukun jacayl iyo meesha sii fadhina de garbaha inta laga soo qabtaa laga saaraya meesha hal kale oo dambeeya male asaga hadda aakhir muxaawalo oo ku dagaalamayo gudoomiyaha baarlamaanka markii korontada iyo biyaha laga jartay dadkii ku soo dhaweeyo ku dajiyay shabeel ayaan koow ka ahaa waxaan ku dheelaa ummadaada iyo dadkaaga u hiilay cadaalada ka hadal maanta waxaa 8 bilood u buuxsantay madaxweynaha madaxweynkiisu markuu dhamaaday kadib 8 bilood uu ku darsaday bal taasi adiga aragtidaada ninkan bacda 8 February wuxuu ku joogaa dulmi ahba haddii cadaalad ay jirtay oo doorasho la aaday oo xildhibaano iyo farsamo jirtay soo wadanka faraaq uga dhaceen inuu meeshii fadhiya dhib uma arkeen laakiin mar walba doorashada kama go'nee waxa ka go'an inuu wadankan ama qallaaso geliyo ama uu dad isku diro ama uu dad ka dhaxadlo ama uu extension ku darsasho u raadiyo wax kale meesha u joogaa male agtay markii loo fiiriyo xaaladda dalka beesha caalamku ka hadashay in doorashada Soomaaliya waqtigeeda ku dhacdo oo ku eg 10 Oktoobar مش leedahay xilligaas doorashada dalka way ku dhici kartaa sida hadda dalku horta beel caalam daruufa noo geynaysa maahane aniga ra'yigayga beel caalamiga afaarahayaga inay soo gasho diyaar uma ahi hadday daruuftu ka lifto oo ninkan uu iska sii fadhiyo dhaqaaqi waayo de beesha lixaad waayo wadankaana dhaqaale ku bixiyaan inay ka hadlaan dabcan Soomaalida ayadaa mar hore ihaanadaas qaadato hadda aniga waxaan kaligay diidi kara ama joojin kara ma laakiin gabagabada warku wuxuu yahay doorasho waa la galaa weyna dhamaanay arrimahan khilaafkaana Semberi ra'iisul wasaaraha ayaa xaq u badan guuleysan doona anoo hadda wax muraad aan kala hayn ayaan haddana aaminsanahay inuu macnaha asaga u badanayso wixii tala madaxweynaha haddii dastuur iyo nidaam uu ilaalinayo inuu safiir hadda waraaqada uu kala gudoomo ayaaba baadil ahba xilkiisa yaaba dhamaadaba
xilkiisa soo dhamaad hadduu sharaf ku joogo doorasho iyo nidaam uu socoto waxbay ahaan lahayd sharaf kuma joogin xooga hadda kor station lagu joojiyay haddana ragga xooga uga joojiyaa taagan asagaaba sharci ku joogna inuu safiir warqad ka gudoomo qalad ay taaba waxaad ka mid tahay musharaxiinta madaxweynaha dalka bal adiga hamigaagu siyaasadeed bal muxuu yahay hamigayga siyaasadeed inaan guuleystaan raba insha allahu tacaala oo aan shacabkan iyo dalkan aan u shaqeeyo dan kaleeto oo aan leeyahay aniga ma jirto maxaa ra-iisul wasaaraha la gudboon maadaama khilaafkan hadduu sii xiriisto dalkan uu ku jira xaalad doorasho maxaa la gudboon aragtida ra-iisul wasaaraha aragtideeda waxaa la gudboon haddii baarlamaanka warqadda ay hadda soo qoreen intaas ku ekayaan oo iska aamusaan khayr iyo wanaag iyo maslaxad inuu raadiyaa la gudboon haddii laakiin fartays lagu wado sabdiga ay hadal kala keenaan waxaa la gudboon in wasiirka arrimaha gudaha uu ku bedelo sanbaloolshe waxaa la gudboon wasiirka warfaafinta hadduusan garabkiisa inuu maareeyo ku bedelo waxaa la gudboon rag la jaan qaadi kara inuu raadsadaa la gudboon inta doorashada laga gaarayo gabagabada barnaamijkeena ayaa soo gaarnay baaqa ugu dambeeyo aan sheegaya waxay tahay abwaan soomaaliyeed oo fanaan ah oo la yiraahdo Sakariya Kobciye ayaa waxaa laga sheegay hees inuu yiri lama kala maqnee taariikh meel ku qoran wuxuu ku soo gabagabeeyay maanta oo kalena indhaha shidan aniga hadda waxaan leeyahay caawa kala shacbiga Soomaaliyeed indhaha shidan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada waxaa laga rabaa wadanka inuu saqalaasay iyo buuq galin arintii hadda ay taagan tahay inta meel xun isla gaari lahaa ama dad kale nagu soo bixi lahaayeen halkaas inay ku akaato ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaa in si sharaf leh oo wanaag leh wax walba ku dhamaadaan guud ahaan daawada inta ayaa ku saafmeeray barnaamijka tixraaca wararka ee SMNews TV oo idinkaga imaanayay TV-ga xarunta ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa idin socodsiin anigu Maxamed Axmed Mursal waxaa qaybta kaamirada iga caawinaya saaxiibadii Cabdifatax Roobe iyo sidoo kale Yaxye barnaamijka waan kaga mahadcelinaa waxaa marti ugu ahaa musharax madaxweyne Xasan Cabdi Guleed aad ma san tahay أضام حولها أرلدا عدي لقوه آمنوا ثم أدعوا سبيلي أديجا لقادي عيفورا يديكما أركيسي يجيلا شيبو عيفورا يديكما أركيسي إلى أديكو عيفورا يديكما أركيسي إلى أديكو من حكادي قريب من حكادي قريب